Somaliland ayaa maanta kulan kula yeeshay wasaaradda diinta iyo awqaafta dhaqanka ee dalka Jamhuuriyadda Jabuuti. Wasiirka diinta iyo awqaafta ee waddanka Jamhuuriyadda Jabuuti Aadan Xasan Aadan waxayna iskula soo qaadeen cilaaqaadka u dhexeeya Jamhuuriyadda Somaliland iyo Jamhuuriyadda Jabuuti. Wafdiga ka socda wasaaradda arrimaha dibadda dalka Jamhuuriyadda Somaliland ayaa inta ay joogaan dalka Jamhuuriyadda Jabuuti waxa ay la kulmi doonaan safaaradaha u fadhiya wadamada Carabta dalka Jamhuuriyadda Jabuuti. waxaana socdaalkan ay wafdigu ku joogaan waddanka Jabuuti nooga warbixiyay Fahmi Qaasin Maxamed oo ka mid ah wafdiga ka socda wasaaradda arrimaha dibadda dalka Jamhuuriyadda Somaliland. maanta waxaan la kulannay wasiirka diinta iyo awqaafta Jamhuuriyadda Jabuuti Aadan Xasan Aadan runtii booqashadan aan ugu nimay xafiiskiisa si wanaagsan oo walaaltinimo oo kalgacal leh ayuu nagu soo dhaweeyay. waxaan u gudbinay warqad rasmi ah uga sidnay wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga Jamhuuriyadda Somaliland Sayid Maxamed Biixi Yunis. ujeedada socdaalka guud ahaan wuxuu ku saabsan yahay kobcinta xiriirka labada dal ee jaarka ee walaalaha ee waxyaabaha badan wadaaga. wasiirka oo maanta inala kulmay xafiiskiisa wuxuu inoo sheegay in hadduu Ilaahay raado bisha May nagu soo fool leh inay jirto shir uu isaga iyo wasaaraddiisu ay qaban doonaan oo ay dalab fara badan oo geeska magaranaysa ay ka soo qayb gali doonaan oo ku saabsan sidii magaranaysa dadka muslimiinta ee walaalaha ee aagan iyo mandaqada degan looga fogeyn lahaa magaranaysa arrimaha xaq jirnimada. shirkaas oo naga codsaday wasiirku hadduu Ilaahay raado in ay Somaliland ay si mug leh ay uga soo qayb gasho. Maxamed Jaamac Awaale, Telefishinka Qaranka Somaliland, Jabuuti.